waxaa bilihii in soo dhaafay soo badanayay Soomaalida magangelyo doonka ee soo galaya wadankani Koonfur Afrika waxaana lagu qiyaasaa inay gudaha u soo galaan toddobaad waliba qiyaas ahaan qaxooti Soomaali oo tiradooda lagu sheegay inay gaarayso ku dhawaad 100 ruux oo muhaajiriin Soomaali ah kuwaasi oo doonaya inay helaan nolol ka duwan tii ay hore uga soo carareen ay ka jirta wadankii hooyo waxa ayna dhibaatada kala kulmaan oo rajo xumo ku soo dhaweeyo qaabkii ay ku heli lahaayeen waraaqda sharciga ay ku joogi lahaayeen wadankani Koonfur Afrika Soomaalida magangelyo doonka ee ku nool wadankani Koonfur Afrika ayaa ka cabanaya helista waraaqadaha qaxootiga ee lagu joogo wadankani Koonfur Afrika iyadoo ay qaar kamid ah Soomaalida magangelyo doonka ee ku nool wadankani ay qayladaan aad u xoogan ka soo yeerayso kadib markii ay soo wajaheen xaalado kala duwan oo ku aadan helista waraaqadaha sharciga ah taasoo ay bixiso waaxda socdaalka ee dalkani Koonfur Afrika qaar kamid ah howlwadeenada ka shaqeeya xarunta sharci bixinta u qaabilsan ee wadankani Koonfur Afrika oo isugu jira Soomaali iyo Koonfur Afrikaan kuwaas oo lacag aad u fara badan ka sameeyay iibinta waraaqadahan loogu talagalay dadka magangelyo doonka ah waxaana lagu kala iibsadaa sharciga 2 sano ee loogu talagalay in si bilaash ah lagu siiyo dadka qaxootiga ah qaab muqallasnimo iyadoona markaasi laga iibiyo qaar kamid ah dadka soo galootiga ee sharci doonka ah sida la sheegay sharciga la siiyo qaxootiga ayaa lagu iibsadaa qiimo lacageed oo u dhiganta $250 Mareykanka taas oo ay awoodin dadka tabarta daran ee soo galootiga ah wayna fududahay sidii aad ku heshid marka aad heshid lacagta laaluushka ah waxaana jiro goobo ganacsi oo loogu hagaago oo ay ku sugan yihiin rag lagu sheegay inay dalaaliin u yihiin oo isku xiraan ragga iyagoo ka shaqeeya xarunta sharci bixinta iyo ruuxa Soomaaliga ee doonaya inuu helo sharciga lagu joogo dalkani Koonfur Afrika Cabdinasir Soomane Universaltv Johannesburg